madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga talada Somaliland haye kulmiye ayaa maanta si rasmi ah Hotel Mansour magaalada Hargeysa uga furay shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye kaasi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 1,000 ergey oo ka kala yimid guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland. Madaxweynaha ayaa madasha shirka ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlay arrimo kala duwan isagoo bulshada reer Somaliland ka codsaday inay si isku duubni u waajahaan hardanka siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka socda mandaqadan geeska Afrika kaasi oo u dhaxeeya quwadaha waaweyn ee shisheeye. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay mukhaadaraadka kala duwan ee ku soo badanaya dalka waxaana uu yiri inuu ku soo batay maandooriyayaasha dhaqan xumadu wixii laga sarriigan jiray ee diin iyo dhaqan baa inoo ahaa oo la darjiinayo mushkiladaha ugu weyn waxa ka mid ah geedkan qaadka la yiraahdo qaadka dhammaan dhakhaatiirta iyo jaamacadaha adduunka ee caafimaadku waxay isku raacsan yihiin inuu qaadku yahay dilaaga qofka bini'aadmiga ah oo waxyeeleeya xubnihiisa ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin beerka iyo kaliyaha iyo wadnaha iyo maskaxda sida ay tahay haddana waxaynu ku dhaganahay cunista qaadka oo in badani aanay ka waantoobin waxaa nasiib darro ah in inaga oo dhaqaalaheena ka cabanayna haddana qaadku oo waxyeeleeya nafta iyo qoyska iyo nadaafadda qaranka iyo isku xidhka bulshada intaba waxyeeleeyo la wada ogyahay haddana Somaliland sanad walba waxaynu ku bixinaa qaadka oo ku soo iibsanaa 700 oo milyan oo lacagta Mareykanka bal qof walba isweydii xoolaheena caafimaadka talaalka waxay naga bixiyay dawladdu inagoo kala lacag Suuriya lagu bixiyo dhakhtarradeedana waxa taageera oo qalab badan nagu caawiyaan u barya tagnaa dadina la mid ah dawladda naga mid haddana qaadka waxaynu ku bixinaa 700 oo milyan bal aqlida ka warraba oo aynaan isweydiinay waanu ku faraxsanahay waxaynu u baahanahay xeerar iyo wada jir qaranka oo dhan inaynu aafada kaga hortagno intaa waxa dheer dawladda jaarkeena Itoobiya inuu ka iibsano wax alliya waxaynu u geyno inuu ka iibsano ma jiro taasina waxay keentaa dheelitir la'aanta baayac mushtarka oo aakhirkeedu noqonayso saboolnimo qofkii isagu aan waxba iibgeyn wuxuu iibsadaa dhibaatada labaad ay haysataa ee soo kordhay waxa weeye maandooriyaasha xashiishad khamri kaniino iyo balaayo baaskale ciidamada amniga iyo culimada iyo waxgaradku in badan bay ka dagaalamayaan arrintaa waaxda garsoorkuna tallaabooyin adag bay ka qaadaan markay hortagaan laakiin waxa xaqiiqo ah waxa jira kooxo abaabulan oo balaayada iyagu isticmaala kuwa ka iibiya kuwa ka dilaala shaydaan maroor oo dhan kooxo xoog leh oo abaabulan oo ciidamadii amnigana isku taaglaayihiin maxkamadihiina marka la geeyo waxa wada arkaysaa dad u soo gurmanaya qof daroogo lagu qabtay oo waarinayo waa sidan iyo waa sidan walaalayaal aynu qaran ahaan run isu sheegno muddo dhow haddaynaan arrintaa wax ka qaban waxaynu ku jiraa marxalad ubadkeena iyo da'deena soo socota ay naga baaba'ayaan xilkuna maanta wuxuu saaran yahay inteena nool ee xilkaska ah rag iyo dumarba waxay u baahan tahay arrin dhan oo aynu gacmaha iska qabsano ciidamada amniga iyo maxkamadaha qorshe cad baanu ka leenahay oo la dagaalanka ah oo tallaabooyinka ka qaadaan hal la isgarab taago ee waxyaalaha xun ee qaranka la dagaalamaya aan laga hor iman sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa haweenka Somaliland niyada ugu dhisay inay qalad ahayd go'aankii ay qaateen golaha wakiilada Somaliland ee ay xeerka doorashooyinka kaga saareen qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay waxaana uu yiri siinaya si aynu hore ugu marro arrinta haweenkeena oo cabashadooduna badatay oo aynu ku doodna haddii aynu nahay ragga war cawshana haweenku ma garba isawa gardar
haddii ilaahay laga yaabayo haweenku diintuna way karaamaysay ilaahayna wuu karaamayey dalkana waxay ka yihiin 50% distoorkeena wuu qaaxay saynu haweenka ula dhaqmayno distoorkeena qodobka 188 inuu yahay baan filayaa wuxuu leeyahay waxaa le wixii diinta ka hor imanaya uu ka reebay yahay oo asaaskeenu waa saldhigga shariicada islaamka gartu waxay tahay way naqan tahay hadday hablaheenu qodobka ka gudbayaan oo wax shariicada ka baxsan ay ku doodayaan way gardarayeen hadday la soo taagan yihiin mar walba shariicadu waxay naga reebtay waanu ogolahay laakiin xuquuqdeeda kale distooriga ah ayaa la dafirin war dee way naga gar leeyihiin gar ilaahay bay taqaanaa sanadkii 18 baan maraya aakhirkiisa ama maskaarta quraantiisii waxaan u gudbinay golaha wakiilada kooto inay dumarku ka qayb galaan golayaasha dhawaaq badan oo bulshada kaga yimid saan hubo iyo culays badan oo dad badan kaga yimid kootada waa laga saaray iyaga iyo qolada beelaha la haybsoocaba anigu waxaan leeyahay taas sax ma ahayn waayo dumarku inay talada wax ku yeeshaan oo ragga la taliyaan oo sida islaamka waafaqsan u shaqeeyaan diinta iyo axaadiista iyo siirada nabiga way ku jirtaa anigu sheekh ma ihi oo la doodi maayo culimada halkan fadhida laakiin iyaga wixii aan ka dhageystay baan sheegaya xudaybiya mashkaladii rasuulka ugu adkeeda ka hortimid sallallahu alayhi wasallam xudaybiya markii ay qolada quraysheed heshiiska wada galayeen ee xataa uu aqbalay markii ka daa nabiga kuwa aqoonsan maxamed oo qura qoran markii asxaabtii uu kula soo noqday uu wada ka noqonaynaa imradii asxaabtu way soo jeedtay yaa rasuulullah intaasoo kuma nahay inaga xoog weyn balay sidee baynu u noqonnaa alayhi nabiga alayhi salaatu wasalaam waa bini aadmi arrinta way ku adkaatay isagoo oo wareegay guriga soo noqday xaaskiisii baa sheegtay mashkaladii taa laga bixi lahaa waxay tidhi yaa rasuulullah adigu xiiro hadiyadana gowrac ummadaada intaaga sano way kugu dayana labadii buu yeelay waa taladii islaamku ku badbaaday maalinta waa tala culus fikrad wanaagsan beh waa la isku raacsan inay saa u dhacday axaadiista inta u badan la soo dirishay qaybaha ugu badan waxa laga soo wariyay xaasaskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo caashi u badan tahay konton afar iyo kontonka dawladood ee caalamka ka jira islaamka dadka oo dhan baarlamaankana way ku jiraan talooyinka dawladana way ka shaqeeyaan haddana qaar baa waliba madax ka noqda bal kuwa madaxda hay joogeen inta kale oo dhan islaamku waa isku ogyahay doorka shaqeeyaan waxa dawladeena bulshadeenu u oranaysa inanta shaqo lama geyn karo war annaga inay nimata sheekh eeda ka qaybaan ahay oo hablo waxa adba xukuumadda waxba laga darin xukuumadda xeerka baarlamaanku uu ku baaskareyn kari waayay kootada kaasa anay haysto culays bulsho ayaa ay haysta oo ka soo horjeeda in dumarka wax loo ogolaado waana ilaahay aan ka yaabno oo bulshada dib isu noqoto oo hablaheena xaqooda aan ogolaado furitaanka shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye ayaa waxaa ka soo qayb galay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici shir gudoonka golayaasha baarlamaanka Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyo wakiilada taliyayaasha ciidamada qaranka saraakiil ka tirsan xisbiyada qaranka safiirada dalalka Taiwan iyo Djibouti u fadhiya Soomaaliland iyo wafdi ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo marti sharaf kale oo tiro badan